ninkan qaniga ah ayaa howlo kormeer ugu soo laabtay tuulada agtooda islamarkaana shaqooyin u socday ayuu yimiday kadibna wuxuu damcay inuu masquul galo laakiin markuu gurigan qadiimigaa soo galay lugihiisa waxa qabtay laba gacmood marka uu fiiriyeyna wuxuu arkay gabadh yar oo dhalinyar ah oo aad u qurux badan kadibna wuxuu weydiiyey libta haysata waxa uu sheegtay in faamilkeedu ay eryanayaan islamarkaana loo diidan yahay waxbarashada lagana jarjaray dhammaanba wixii ay haysatay kadibna lagu darayo ninka ugu dhaqansan tuulada oo isaga laga iibinayo arrintaas waxay noqotay mid uu aad uga xumaaday kadibna waxay ku tiri haddaad i caawiso abaal weyn ayaan kaaga hayn doonaa kadib wuxuu go'aansaday inuu caawiyo gabadhii ayuu soo qaadaya gaadhiga markuu soo dhex dhigana wuxuu arkayaa faamilkeedii oo soo yaacaya si uu uga badbaadiyo halkaas ayuu gabadhii habsiinaya kadibna waxaa dhacaya in reerkii ay sidaa ku tegaan islamarkaana ay dhaafaan wuxuuna amrayaa in gebihaanba aysan dadkaasi gabadha usoo dhowaan karin xaaladii ayay uga waramaysaa iyo dhibtii lagu hayay kadibna gabadhii way iska soo degaysaa iyadoo u mahad celinaysaa islamarkaana u sheegaysaa inay abaal weyn uga hayso waxa uu u qabtay kadibna sidaa ayay ku tegaysaa laakiin wuxuu amrayaa kaaliyihiisa inuu gabadhan soo diiwaangeliyo jaamacadda ugu qaalisan ee magaalada jaamacadda ay soo xaadiraysaa iyadoo labiskeedu uu aad u hooseeyo kadibna ardayda ayaa ku jeesjeesaya iyagoo ku leh waa maxay noocaana tahay laakiin iyadu waxaasoo dhan uma joojinayso oo waxbarashadeeda ayay sii wadanaysaa sanad dugsiyeedkii xafladii marka la gaadho waxaa imanayaa mudanihii islamarkaana gabadhii way xaqiiqsanaysaa inuu isaga yahay cidda halkan keentay kadibna wuxuu u sheegayaa inuu bixinayo scholarship islamarkaana uu siin doono qofka mudan qofkiina iyada ayuu noqday taas waxa ugu daray labiskii maalintii markay xidhatay waxa uu soo dhacaya telefoon waxaana soo wacaysa hooyadeed una sheegaysaa inay iskuulka timiday kadib hooyadeed bay ku leedahay hooyo maxaad halkan u timiday ma iska joogtid oo kaalay bay ku tiri iyadoona ogolaasho lagu siin baad halkan iska timiday islamarkaana aad rabtaa inaad waxbarasho bilowdo taasi suuragal ma tahay iyagoo wada doodaya ayaa waxa soo galaya dadkii ay wada deganaayeen qolka hablihii kale ayaa aad ugu qaylinaya wayna soo saaraya hooyada ayaa ka odhanaysa halkan aad bay qurux badantay inaan halkan ku noolaadaan waa wax wanaagsan sababtoo ma jirto meel kaloon ku noolaan karayo gabadhii ayay aad ula diriraysaa gabadhii yareedna waxay ku leedahay hooyo halkan waa iskuul laguma noolaan karayo gabadha yareed waxay ku khasbanaanaysaa si ay deynta hooyadeed u bixiso in ay ka shaqayso baar islamarkaana ay waqtiyada ay firaaqada haysata halkaa tegto waxaa halkaa maalintii koowaadba ku arkaya mudanihii islamarkaana u sheegaya in ay khiyaantay oy tani tahay waxayna isku ogeyn dadkii o dhan ayuu ka odhanaya bannaanka iga baxa wuxuuna weydiinayaa sababta iyo waxaa halkan ku kalifay inay timaado wuxuuna fiirinayaa nabrada wejigeeda ku yaala waxay u sheegaysaa lacagtii uu siiyey oo dhan in hooyadeeda khamaar iyo khamri ay ku dhammaysay islamarkaana ay iyadu sidaa u kala halaysa iminkana ay waajib ku noqotay in kirada hooyadeed ay dhiibto sidaa darteedna ay tan u samaynayso islamarkaana aynaysan haysan dariiq kale iyo si kale hooyadeed uga baxsan karto shaqadanna ay sababtaa u qabanayso kadib arrinta aad buu uga naxayaa la soco qaybta labaad ee muuqaalka mardhow magaalada kugu soo gaadhay muuqaalkan commentiga iyadna inoogu reeb muuqaalkana like saar fiilna soo dheh si ayna kuu dhaafin qaybtan qaybta xigta nabaday